السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشقينا دمانتي وادي السلام يا أصحابي ستين آدي بانتي وادي السلامنا وأنا جو فردوس إسماعيلة iyo anigoo ah caashaladan anigoo warsan sheekh maxameda waxaa weeye waxaan ku jirnaa channelkii Firdawso Ismaaciil Firdawso channel ma sha Allah tabaaraka فردوس channel هذا مسك داي ولا إلا قاتل مقع فردوس إسماعيل من هذول كوري ما شاء الله Firdawso Ismaaciil laftinkeeda magacaasan ku soo dhaweyn laakiin Firdawso channel marka hore waxa ها ما شاء الله تبارك الله Firdawso Ismaaciil channelkeedan ku jirnaa hadda ala kulli xaal kaasa caawa ka hadlaynaa ها ما أنت برنامج وحا عن دمرك خاصة dumarka uu qaas ah naftaada daryeel ah oo daryeelida naftaada daryeel aan caaw ka hadlaynaa waxa labada garab jooga caasho iyo warsan oo ku soo marti qaaday barnaamijka insha Allah barnaamijkaas waxyaabo badan baad ka faa'iideysaa naftaada daryeel dhagahana u soo fur insha Allah barnaamijka insha Allah ma sha Allah tabarakallah wixii ilaahay nagaga aadiyo maxaa هذا رب رالك النظر إن شاء الله وحنا نجوري سنكرت ونجوري سنكرتا وكهلنا نجنا ونفرم هاي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الكريم gabadha dumarka ah maxaa looga baahan yahay nafteeda inay ku daryeesho special sida dumarka markay hooyo tahay markay reer leeyihiin gabdhaha seebay u daryeelayaan naftooda haday dhinac quruxin noqoto iyo haday xag dhinac nafteeda yani kobcinta nafteeda ay tahay insha Allah barnaamijkeena tabkiisu kaas noqon doona ما شاء الله تبارك الله waxa su'aalaha la weydiinayo waa aniga iyo caashaladan إن شاء الله بإذن الله الكريم وحي الله naga garansiyo baan ka dhihi doonaa hadda rabbi raaliga markasta waxaan jeclahay program tayale inaan diisoo diyaariyo إن شاء الله dad khabiiriin oo ku xeel dheer ma sha Allah inaan ku soo casuumo ka faa'iideysi wacan ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ورون walaalkaad u faa'iideynaysaa adna naftaada u faa'iideysanaysaa qofka social media ku jiro ugu horeen waxa way walaalkiisu u faa'iideynaya asna naftiisu faa'iideysanaya marka waa la isku nool yahay faa'iideyso iyo faa'iideey weey meesha waxa socota insha Allah biidin Allah الكريم gabadha hooyada ah reer kale ee carruurta haysato ee adoogii la joogo maxaan ku raahdaa u baahan nafteedu inay daryeesho u baahan nafteeda inay wax walba ayada siiso marka hore naftaada adiga marka jeclaatid dadka dhan ku jeclaana taasaan beenahay wallahi ninka ragga ah ee kula joogo naftaada wuxuu jeclaanayaa marka adiga naftaada jecesha isjeclow adiga marka hore waxaad ogaataa inaad adiga isjeclaatid naftaada iyo dareenkaaga aad siisid in adiga isjeceshahay inaad adigu wax qaban kartid waxna sameyn kartid waa sax inaad noloshaada iyo naftaada wax ka bedeli kartid marka adiga is daryeeshid oo adiga kor isu qaadid bad reerkaaga daryeeli kartaa aad iyo aad tiisa daryeela maxaa la yiri tu kala ku dari karo ama mid kale raadin karo aad iyo aad naftaada marka hore adiga daryeel naftaada wax kaaga fiican ma laha taasaan beenahay inaad waqti fiican seexatid inaad waqti fiican soo kacdid horta inaad noloshaada waxyaabaha ugu important nolosha asaasiga nolosha aad iyo aad waxaan ku caafimaad kasta oo qabtid hadaad hurdadaada ayna saxnayn waxa ma sheegi kartid waxna ma qaban kartid waxna xasuusan kartid waxba inta ma ahan ma qurux badnaanaysid ma firfircoonanaysid يعني hurdadu waa aasaaska koowaad weeyaan aad iyo inta ma ahan because waxa bini aadamka waxa loo baahan 8 saacadood in habeenkii uu ka seexdo ugu yaraa haday ugu yartahay laakiin haddii hurdadaada habeenkii aad hurdo la'aan kugu dhacdo adigoo da'daada gaarin ayaaba ka degdeg ugu dhacaya sida nin ma aha naag ma aha kulli everybody sheegaya qof kasta ha noqoto aad iyo aad nafsadaada horta ku daryeel u yeelo صح waa ina waqti fiican seexataa saasu wixii ciyo soo kacdo ilmahaada wax ugu qabsatid صح oo ilmahaada iyo ninkaada iyo reerkaada ma dhamaado hooshada u qabsatid hoosh adduunka ma dhamaanayso waxa dhamaanaya ma tii la qabo waa la qabaa intii aad wadi kartid ina wadida laga rabaa taasa beedaheen ha marka waxaad isku daydiin idinka naftiina waqti aad seexanaysiin waqti munaasib inay noqoto صح waqti aad soo kacaysaa munaasib noqo salaad subaxdii waa soo wada kaca ilmihiisa example hadda sagaalka kale hadda seexatid
waqti fiican aa kacaysaa ها 9 haddaad seexatid haddana in seexatid 6 oo kale ama 5:30 oo kale 5:45 oo kale soo kacaysaa waad soo kacaysaa qof early 5 o'clock soo kacay yani wax kastuu qabsan karaa aada iyo wax aad kaa dhul ooli kara ma laha bee ma aha hadday ilmihii laakiin iskuul kuu maalinta adiga tagayaan habeenkii waqti dambe seexana dhahday oo markaas subaxii markay ilmo ku sugayaan, dhamaanayso odaygii kugu xariiro lifekaada dhan wuxuu noqonaa magaciisa qof oo horta walaahi ani haddaan arkay bulshadeena gabdhaheena soomaaliyeed waxa ugu badan dhibka haysta waa hurdadaas aada iyo aad hurda la-aan Meel kasta hurda la-aan ka way jirtaa meel kasta way jirtaa anigagaan kula hadlaa waxaa laga yaabaa wax yar inaan ka seexdo habeenkii ha oo intaas telefoon lagu jiro intaas maxaan ku dhahdaay youtube la fiirsanayo film la fiirsanayo riwaayado la fiirsanayo majaajilo la eega waqtigaa kaa dhacayo aada iyo aad balaayo kalena waa soo baxday oo tiktok baa jiro snapchat baa jiro jinni iyo jan muxuu yidhi wadaadkii jinni iyo meel jan kaloo tiktok la dhaho dhahaya meel meeshaan tiktok la dhaha lagu jiraayo alasaydi nin qaylinaad arkaysa tiktok intuu ujeedaa erakan gurigiisa iska fadhiyo hadda gurigiisa albaabkiisa ka soo baxa albaabkii dul taagan waa qaylinaya arninka muxuu la qaylinaya aryaa qabtaa ma waasha talow maalinba waxbaa soo baxa maalinba wax cusub baa soo baxa marka hadda waxa waaye maambadaas tiktok waxaan u gelaynaa sababta waxay tahay soo jeedkii dadkaa batay dhafartii dadkaa badatay markay dhafartaadu badato ilmihii baa meesha ka baxaya adigiibaa nafsadaada ugu horeyn baxayso tahay waa run walahi. nafsadaada ugu horeyn way baxaysaa adaa iswaayeysa adaa isweynayo marka adiga isjeclow muraayada tag inaad qurux badan tahay markaad aragtid naftaada isjeclaanaysaa isjeclaanayo waa run markaad is aragtid subax walba adigiyo maasha allah meeshaadi meel kasii fiican taagan ood is aragtidna waad ku farxaysaa waxaad leedahay kalsooni buuxdaad helaysaa alla waxba igama maqno alla qof nool oo wax qabsan karaan ahay noloshiisana wax ka bedeli karo quruxdaadana sidaaday ku ahaanaysaa wejigaaga dheehuu leeyahay adiga iyo dhalaal naftaada waa qayarmaysaa haddii hurdo la-aanta kugu dhacdo marka wejigaaga dhalaaluu yeelanaya dheehuu yeelanaya quruxuu yeelanaya markaa gurigaaga joogtid waxyaalo badanoo waxaa lagaaga baahan yahay ah nafsadaada inaad ku daryeeshid ah qaylida badan oo kale ma fiicno maanta dhan hadashid oo qaylisid ma kuu fiicno waqti saqdhexe oo kale iyo xilli dambe inaad laakiin qaylada dadka qaar waxay u haystaanba inay ku nafisayaan maya wallaahi nafis ma aha qaylida way kala tahay qayli qof waxaa jiro maxaan ku dhahdaye qof maanta dhan jecel inuu telefoon ku hadlo maanta 12 telefoon buu ku hadlayaa telefoonkaas aa maanta dhan ku hadlaysid neerfaha wuu dilayaa adiga dhanaa dhimanaya ma kuu fiicno waxaa arkaysa airphone baa laga dhawo dab lagu siisanayaa ha waxaa kale oo meesha yaalla waxay tahay inaad carada badan iska ilaalisid aadan caroonin isdejisid mar walba waxaad dhahdaa aad carootid naftaada inaad u sheegtid waxaanay adduunyo tahay laakiin carada gabdhaheena qaar khalad bay ka aaminsan yihiinoo qof kulul oo caro badan haddaad noqotid qof aad dhaqan kartaad gurigeed u dhaqanaysa way kasaysaa yaa lagu sheegay maya halan kuu sheegaya naagta ugu kulul gurigeed way dhaqanaysaa firdowsay halan kuu sheegaya hore waxay tahay waxa meesha yaallo horta kuleel wax ma dhaqo waa sax deganaan waxa ku weysana fudeed iyo qayli kuma helaysid waa sax waxa marka deganaan u fiirsatidna marxalad fiican buu ku geynayaa kuleel iyo qayli markaad keentidna waxay noqonaysaa aada iyo aad waxa yacnaha wanaagaagii oo dhan u booska ka saarayaa laakiin markaad deganaan u hadashid oo wixii aad rabtay aad ka hadashid aysa caro ku qaadin uusa dagaal ku qaadin nafsadaada waxay kuu sheegaysaa inaad massajkii gudbisay qofkiina saad rabtay wax ugu sheegtay caradaadina aada kontarooshay aada noqotay qof iimaan leh marka caroonaysid iimaankaaga waa tegayaa aada iyo aad hadda ka horba waxaan maqlay nin baa ka daawaday youtube-ka ka daawaday wadaadahoo khaalid maxay baa la dhahaa khaalid ayadiisa dhowe maarag gabdhaha soomaalidu haysto wuxuu lahaa gabdha aada u kulul weeyaan ma dhegeysata may wallahi weli ma dhegeysan agressive weeyaan kan markaasaa waan ka xanaaqay aad markii dambaan dabagal weyn baan ku sameeyey waxaan ogaaday gabdhaha soomaalida inayba aaminsan yihiin ina qofka kululaan haa inuu karti leeyahay haa inaad ilmihii ku kululaato odayd ku kululaatid oo
cid kasta ku kululaatid oo gabadhii saaxiibtaa ku kululaatid oo cid kasta wejiga u kuurtid horta kuleelka badan arla wada gubanaysa dhagayso ninba waxaa ilaahay si u abuuray ilaahay ka dhigay haba dabeecad waa gooni dabeecaday waa gooni dad magaciis waxaa iska yeeyeel haddaad iska dhigtid magaciis waxaad ka gaaraysid ma laha adaa meel caddi soo istaagaysa aad iyo aad laakiin qofka dabeecadda kulul arkaysa hadduu ilaahay u dhaliyey waxa jirta mid mid badaani ilaahay ku laakiin dhaliya mid aad bedeli kartid ma ahan ha laakiin ilaahay waxaa laga baryaa markaas camal inaad degtid ilaahay kaa qaado yacnaa kaa qaboojiyay laakiin lama dhaho magaciisa maya waxyaalo waxaa jiro qofkan kulul uu kuleelka iskaga baabi'in karo qofkan caroonaya saacad walba wuxuu carada iskaga baabi'in karo waxay helaysaa marxalado badan oo adiga ku toosinayso aad iyo aad waxaa jiro gabdho badan oo wanaagsan oo youtube walaa ku jiro gabdho badan oo ka hadlo waxaa jiro rag badan oo youtube-ka ku jiro oo ka hadlo waxaa jiro qoysas badan oo lamaanayaal ahoo ka hadlo nolosha dhabta ah iyo waxay leedahay iyo macaanka ay leedahay ka hadlo ayaga markaad dhegaysataan waxyaalo badan baad helaysaa khibrado badan baa meesha ku jiro kaaga soo baxayo kuleelku ma aha inuu reer dhaqayo kuleelku ma aha inuu nasteexo yahay kuleelku waxa weeye adigu ku dilayaa reerkaagu baabi'inaya ilaa aakhiradaada ku raacaya kuleelkaas aada iyo aad marka waxaa fiirisaa mar walbaba caradaada waxaad ku damisaa dami caradaada inaad xakamaysid maxaad ku daminaysaa waxaad ku daminaysaa caradaada wixii xumaan aad u aragtid inaad wanaag u bedelatid ha wixii xumaan aad u aragtid inaad wanaag u bedeshid wixii xumaan aad isdhahdid way xun tahay oo arrintaas in lagugu sameeyo ma ahayna waa inaad u qaadatid qadarka ilaahay oo kugu dhacay taa markaad niyadda gelisid waxaan waa qadar allo igu dhacay markaad dhahdid waxaa kaa baaba-aya caradii ja waxaa meeshii soo gelayso samir iyo deganaan nasteexa ku gelayso nasteexadaasa waxay ku dhalaysaa inaad reerkaaga hore usii wadatid caradii ay kaa baabi'iso ilmahaagii haysatid gurigaagii dhaqatid muslimka ilaahay u fiicnaatid adiga fiicnaatid adiga naftaadii kor u qaadid ay ku noqonaysaa aada iyo aad midda kale waxaa jirta waxaa aada inoogu badan bulshadeena hooyadii markay reer yeelato oo ay reer soo yeelato hadduu ilaahay awlaad siiyo awlaad dhasho oo ilmahaasuna ku mashquusho oo cibaadadii iyo aada ugu yaraado oo yacni cadhadan badan iyo xanta badan iyo kibirka badan iyo waxaasoo dhan waxa keenaya mataqaanaa cibaadada ilaahay oo yaraato haa cibaadadii yaraatay alla xasuusigoo yaraatay istakfirtii oo yaraatay anigu waxaan dhihi lahaa mataqaanaa naftaada u roonow aakhiriya adduunba ha wax qabso ha aakhiradaadana wax u qabso adoo weelkaaga dhaqanaysid baad qur-aanka dhegaysan kartaa dhinac kasii shaqaysan kartaa istakfirta subxaana allah wabixamdi subxaana allah alcadiim baad dhihi kartaa waxyaabo badan oo adoo dhinac kastaad naftaadi ka buuxin kartaa mugta aada iyo aad sidoo kaleba waxaa waay magaciisa qofka bini aadamka waxaa loo baahanya hadday markay gabadha ahayd waa isnaashiisa waa isla bisi jirtay oo magaciisa nolosheeda waa qurux badneed waa qurux badneed laakiin maalinta lagu guursado gurigaada waa iskala dhigaya inaad iskala dhigto waa laga fiican aada markasta waxaa loo baahan yahay qofka bini aadamka inuu nadaafada ku dadaalo nafsadiisa uu ku dadaalo sax saa shalay isku tirtiraysa isku hagaajinaysa maantana gurigaada markaad tagto saas inay u hagaajisid adigana isku hagaajisid ilmahaada hagaajisatid naag qurux badan oo ilmaheeda qurux badan oo guri qurux badan laga soo baxaa inaad noqotid ninka markaad kaama cararaayo mid kalena ma fiirinayo laakiin haddaad gabsaarka hadduu cajiin leeyahay dhinac ka jeexaya aad ku socotid maxay noqonaysaa waa lagaa taga aada iyo aad walaa gabdhaha aada waxay ugu kaftamaan mataqaanaa odaygii baa kaa tegiyo odaygii baa kan iyo odaygii baa meel u socda marka programka insha allah wuu soo socdaa programkaasina ha programkaas insha allah magaciisa noqon doono yuusa odayga kaa tegin ha yuusa odayga kaa tegin insha allah boorsada lagu rido hala ilaashada ah waa soo wadnaa wuuna imaan doonaa haddii rabbi raali ka noqdo maanta waaradeennii naftaada u roono intaasaan ku ekeysiinay naftaada markaad daryeeshid baad dadka wax tari kartaa adigu wax tari kartaa marka naftaada tu kale ku daro marka adiga kor isu qaad aqoontaada kordhi cilmigaaga kordhi hadday noqoto dhaqankaagi soomaaliyeed hadday noqoto wax kasta dhinac kasta iska dhis qof murti ku salaysan noqo ha si aa u noqotid qof baxsan oo yacnaha wax walbaba ka korsan oo niyadii ka koray caqliga ka koray maskaxda ka koray jismiyan iyo jir ma aha in loo koro maskaxda laga koraa caqliga laga koraa maskaxdaada iyo caqligaaga markaa korisida wax u sheegtid
adigana waa koraysaa reerkaagana waa kuu dhismaya taas waxay ahayd ilmahaagana waa kuu hordhaca bay ahayd insha allahu maalinba dhinac baan kaga hadlaynaa maalin jirka kaga hadlaynaa maalin labiska kaga hadlaynaa insha allah maalinba dhinac baan kaga hadlaynaa insha allah programkaas program taxanaa buu ahaan doonaa asxaabtayda gambaleelka furta insha allahu si aad ula socotiin sheerka commentiga xaqiina waa idinka inta Firdawso Ismaaciil waa anaga xageena iyo Firdawso xageeda insha allah aad iyo aad baan salaamaya insha allah tan kale waxaan ku dareynaa assalaamu calaykum tan kale waxaan ku dareynaa walaasheena Faadimo channel furo dhahna anaga waa ku qasbinay anaga way soo furatay maadaama group saddexaad waaye insha allah waynu ku soo biirtay YouTube lay noqotay inaad booqataan soo booqda sayru sheekha u qoran insha allah markay wax soo galgaliso halkeena insha allah sheekha ku dadaalo insha allah biidnillahi kariim waxa waa maadaama la iga codsado la yiri haddaad maanta oo dhan YouTube ka hadlaysid adigana waxaan ka rabnaa inaad YouTube soo fariisatid si aan final waa lagu guuleystaa insha allah biidnillahi kariim mar dhowna waa soo gali doonaa haddii rabbi raali ka noqdo biidnillahi raxmaan السلام الله عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم اسكدر